kulan wada tashi ah oo ay yeesheen mas'uuliyiinta xisbiga ahdi ayaa waxa ay ka soo saareen qodobo dhowr ah waxaana saxaafadda la wadaagay xogayaha arrimaha federaalka ee xisbiga ahdi Cabdalla Axmed Ibrahim Afwaranle xogayaha arrimaha federaalka ee xisbiga ahdi ayaa ka hadlay sida ay xisbi ahaan uga xun yihiin qaraxyada iyo dilalka maalmihii u dambeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho waxa ayna taasi u direen shacabka Soomaaliyeed ay dhibaatadu ka soo gaartay qaraxyada iyo dilalkaasi waxa uu dawladda Soomaaliya iyo dhammaan xisbiyada ka jira Soomaaliya iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu baaqay inay ka shaqeeyaan sidii ay u badbaadin lahaayeen dalkooda kulan wada tashi oo ay yeesheen guddiga fulinta xisbiga ahdi ayaa lagu qiimeeyay xaaladda nabadgelyo iyo siyaasadeed uu dalku marayo waxaana isla gartay arrimaha soo socda xisbiga ahdi wuxuu tacsi u tiiraanyo la u dirayaa dhammaan shacbiga Soomaaliyeed gaar ahaan eheladii iyo qaraabadii ay waxyeeladu ka soo gaadhay qaraxyadii isdaba joogga ahaa ee maalmihii u dambeeyay ka dhacay caasimadda dalka xisbiga ahdi wuxuu si buuxda u garab taagan yahay una taageerayaa dadaalada dawladda dhexe ugu jirto soo celidda iyo sugidda nabadgelyada dalka gaar ahaan magaalada caasimadda xisbiga ahdi wuxuu ugu baaqayaa dhammaan xisbiya siyaasadeed dalka ka jira culamaa u diinka bulshada rayidka ah in ay garab istaagaan oo u guntadaan sidii ay dalkooda u badbaadin lahaayeen dawladda ay leeyihiin kala fikir duwanaanshaha siyaasadeed ma aha inaad mar walba mucaaradid oo ka hortimaadid dawladdaada marar badan ayaad ku khasban tahay in aad taageertid oo garab istaagtid dawladdaada sidoo kale xogayaha ayaa amaanay maamulka Jubbaland waxa uu ku amaanay sida wanaagsan ay wax uga qabteen ammaanka goobaha ay gacanta ku hayaan maamulkaasi isagoona madaxweynaha maamulka Jubbaland u soo jeediyay inuu qabto doorasho xor iyo xalaal ah waxaan jeclaan lahaa inaan uga faa'iideysto fursaddan arrinta Jubbaland waxa xaqiiqo ah oo la og yahay in madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam uu wax badan ka qabtay kuna guuleystay sugidda nabadgelyada magaalada Kismaayo iyo magaalooyinka gacanta ugu jira dawlad goboleedkaba inta kalena aan rajaynayno inay si degdeg ah u soo gali doonaan gacanta dawlad goboleedka sidaas awgeed waxaan uga fadhinaa oo ku boorinaynaa in uu dhameystiro habka siyaasadeed ee dawlad goboleedka Jubbaland taas oo ugu horeyso qabashada doorasho xalaal ah oo ka dhacda dawlad goboleedka Jubbaland bisha 8aad ee sanadkan ku jirno xisbiga ahdi oo xubin ka ah axsaabta liberaalka carabta kuwa adduunka iyo kuwa Afrika ayaa iyaguna ka xumaaday qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho waxa ayna ugu baaqeen isku duubnaan si loo ilaaliyo ammaanka dalka Soomaaliya